anoo ku bilaabay magacayga Habi Maxamed waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dhibaatooyinkii jirdilkii xumaay xalan soo gaaray foosho xumaa anagoo run ahaantii faraxsan oo ku faraxsan 18 May xuskii inaan xusno calankayga quruxda badan leh aan aad iyo aad ka jecelnahay horta saas ay aad inoo suurtagal weeday waxay noqotay dhalinyarta maxay tolay reer Banaadir namba reer Muqdisho wayna la dabaaldegayeen oo nugula faraxsanaayeen saas ay ahaatay walagu horiyimi waxa ku horiyimi ciidanka farmaajo oo ciidan uu soo diray oo markaas gadaal uu ku soo diray markii hore loo ogolaaday hadana bacdi gadaal uu ku soo diray markaas anagu waxaan ku balansanay ilaa hotel inaan macnaha ku qabsano xalfad oo aan waqti ku qaadano farxad joog ku qaadano kabacdi saas ay ahaatay waana laga qasay anagoo qarash soo gelinay soo dhisnay macnaha u soo diyaar garoonay farxad inaan qaadanayno calankayga quruxda badan leh aan jecelnahay oo ku soo libisanay saas ay ahaatay askartii waxaan kala kulanay in calankii quruxda badnaa ee tawxiidka ku qornaa xitaa kama xishoonin way ku joogsadeen hortayaday ku tuureen macnaha way ku tunteen oo kaandarka aan xidhnayn istaanta noo aan xidhnayn heer ay gaadheen waan ka bixinay halkaas isku qaawinaysa saas ahaa waan iska dhaafay kabacdi markaan qaawinaysa aan ku dhahay waan macnaha maxay tolay adee dharkii aan iska xidhnaaday kama bixin karaan markaas meeshii baa aaday oo waxaan ku dhahay xagan galiya heer waxay sameeyeen intay soo halka ay ka soo mareen dhan qof Soomaaliland meesha ma joogi karo macnaha wixii Soomaaliland guriyooda ku laabteen markaas anigu waan diiday mana laabanaya ku dhahay inay maxna halkaas joogaya xeebtida si joog ku qaadanaya hada farxadii iyo joogi kale ay ka qasteen saasaan ku dhahay way diideen macnaha qori bay soo qaateen xitaa ay ugu fureen ay ku dhahay waan ka dhex saarayna meesha calanka ku sidato maxaad nooysa af Soomaali aad u khaldan oo aan ka sheegi karin oo wallahi markaan soo xasuusto ay xitaa ii cabaysteen qoriga gudaha oo kugu dhufanayna macnaha anigu waxa dhahay markaas calankayga quruxda badan leh hadii aan u dhimanayo igu dhufta baan ku yiri kan ma bixinayo waan ku dhimanayaa baan idhi waan ku dhimanaya ma bixinayo laakiin kan watay aan gacmaha ku watay way iga qaadeen ki dharka ay ahaa bis baa ay soo hadhay kaasna way anigoo hadana si kasta ii galayaan way ugu joogjoogsadeen ki kala dhulka ku daadiyeen marka wallahi xalay wuxuu igu dhacay ma ilaabin aad baan ugu waxa saa noo galeena farmaajo wuxuu soo diray oo ka dambeeyay bay ahayd anaga macna madaxda hawiye xitaa qayb ay naga lahayd ma sha Allah si wanaagsan baan ugu hambalyeynayeen alxamdulillah waan taageersanahay anagu hadaan dhalinyarta reer Soomaaliland boo shacabka reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland halkan jooga aan nahay waxaan macnaha hadii arinteeda laga hadli waayo ambaba raali gelin laga bixin waayo garab baan muujinayna waan isku tagaynaa wadankoodana waan uga baxaynaa hadii saan noqoto macnaha fahanteen markaas banaan wax baa sameynayna ambaba mood wadankooda uga baxaynaa wadankayga quruxda badnaaba ku laabanayna run ahaantii aad baan u xareysanay wallahi maanta waan salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim aniga horta magacaygu waa Sharmaaka Salaamaan Cali waxaan halkan ka muujinayaa ama halkan aan ka cadeynayaa warbaahinta madaxa banaan aan u sheegaya wixii xalay tolina soo gaadhay anagoo diyaarsan farxadeeda noo gaarka waxa wadankan aan la nimi dadku hadday wadaagayaan waxa weeyaan wixii dadku ay wadaagayaan in la isku tixgeliyo anagu dawladii hore iyo dawladda nimanka qiimeynteedu isugu mid noomaha sababtoo wixii xalay nagu dhacay baa noo cadeynay inaan isku mid ahayn taa waxa keenayna waanu aragnaabo xalay anagoo farxadeeda u diyaar garoonay horena u qabsan jirnay imikana hadaan warwar qabno nin og in dhibaato soo gaadhayso dhib ma doonaya oo ma jawaabto waxa weeyaan hadaan meesha anagu dhib ka ognay qofna dhibaato cagiisa kuma doonto meesha waxa ka dhacay wax aad u cajiib badan feerjilib jaqel qori dabadii waxa nalagala xishooday may jirin anagu qadiyadeeda iyo qarannimadeeda aan muujinay garbahan oo dhan baa nalaga jijibiyay hadaan ragnay dumarkana maryaha lagala baxay lagama xishoon waan lagu joogjoogsaday calankii iyo wixii aanu sidanay iyo tawxiidkiina dhulka la galay marka anagu qadiyadeeda iyo qarannimadeeda meel kastoo aanu joognaba waan ka muujinaa dan reer Soomaaliland anaga waxba nagama gelin dadka dawladda ku jira Soomaaliya Soomaaliyana waxaan anagu wax kula wadaagnaa maamul goboleed saami qaybsi dastuurka Soomaaliya ku jirta in Somaliland
aanay waddan ahayn laakiin ay wax kula qaybsato qaab waddan dastuurka soomaaliya ayay ku jirtaa ka soo eega ana uma lihiin puntland mana lihiin jubbaland haddaan maamuladaanay dee maamuladaasaan heerkooda la xisaabin lahaa laakiin heerkaan wax ku qaybsanaa ah heer caalami oo dib u eegid baa ku qoran somaliland dib u eegid baa saaran markaa qarannimadayda waa muqadis meel kastoo aan joognana waan ku dabaaldegnaa anugu shaqsi ahaan intaan halkan joogay laamiga taleex baan ku qabsaday xitaa anuu keligay oo qarannimadeeda muujinaya shacabku isma diidanaa xitaa somaliland waan la hadlay madaxweynahayga muuse biixi waan quudhay clibkaa mar baan ku tusi doonaa haddii aad aragtayna waad aragtay waxaan ku uhi muuse biixow dadku ha kala kaxayn isaga laftiisaan la hadlay kan iminka joogana waxaan leeyahay war shacabka ha kala kaxayn farmaajo ha kala kaxayn shacabka saanu muuse biixi muqdisho uga dhexleena ha kala kaxayn annagu keebaan la coloobayna se keebaan la heshiina labaduba inay heshiisna la noqdaan baan doonaa dadkuna ay heshiiyaan waxaa iminka isaga sharaf u ah dadka reer somaliland ee joogay muqdisho ayaa maanta ku dabaaldegaya muqdisho sababtoo halkaa waxaa ka caddaanaysa inaan dadkii kala maqnayn muuse biixi laftiisu yaa wuxuu odhanaya dadkaaga se loo qiimeynayo dadkaa kale u qiimey inta badan dadku waa cawda cabashadana dee adigu wallaahi anugu ma garanayo si waxu eegeen siyaasaddana aada ugumaan milmin wixii xalay aan doonayeyna waa laygu soo dilayba ya anugu somaliland baan doonayay iminkaynantan dhinacayga fadhida waxaan malaynayaa dee dhibka u badanay gaadhay iyada aad sheegi doonto laakiin anugu waxaan ogayn horta inaan isweynay meeshan aan wada tagnay aniga iyo iyada iyo qaar kaloo badan iyo weliba malaayiin dee qof baanu hayno dadka reer somaliland dad la koobi kara maaha demoqrat dad aada ugu fara badan baanu meesha ku tagnay meeshana waxaanu ku joognay badan dhalinyaro matalaysa reer somaliland jaaliyad ahaanna waanu ku tagnay muuse biixina waxaan tusinay dadkiisu meel kastaba ha joogaane in qarannimadiisa iyo dowladdiisa iyo dadkiisu meel kastaba joogaanba ay qiimeynta qarannimadu qof walba guudka ka saarantay yaa idigu waxaa maqasheen guudkan ka wadaaya annaga qarannimada guudkay naga saarantay waddankana sidaan wax u qaybsanno waanu naqaanaa farmaajona waxaan leenahay nagax shood baan leenahay farmaajo haddaad nagax shoon weydana waxbaa waxweeye anugu horta arrimaha siyaasadda aada baan horta uga yaraa ma garanaysaa laakiin madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay nagax shood hadaanu nahay dadka reer somaliland xalay wixii aada nagu samaysay iyo wixii ciidankaagu nagu sameeyeen iyo dib noogu dhacen hadaanu nahay dadka reer somaliland ama waddanka iga taga dhawaxii reer somaliland cidna yaanana matalin oon iskaga kaa baxayna ya saasaan anagu dowlad kulnayba marka intaasaan kaga baxay anigu waanu ku salaamayaa digniinna waxaa iga farmaajooy iyo intii la shaqaysaba qiimeynha ku sameeyaan dastuurkan iyaanay soo dhaafin